Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha waxayna soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin Enzo Maresca oo sheegay inuusan Manchester City ugu imaanin Kobe Ambasti oo koobiyeynayo tababarihii hore ee Pep Guardiola. Sidoo kale waxaynu eegaynaa Liverpool, Paris Saint-Germain iyo sidoo kale Real Madrid oo raadin xoogan u jira xiddiga RB Leipzig ee Jan Diamond. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir hadaad hore noola joogtay like iyo share noo dheh waad mahadsantahay. Enzo Maresca ayaa markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta tan iyo markuu noqday tababaraha cusub ee Manchester City. Wuxuu caddeeyay inuusan doonin inuu noqdo tababare si toos ah u koobiyeya Pep Guardiola, inkastoo qaab ciyaareedkiisa uu la mid yahay kii tababarihii hore. Tababaraha Talyaaniga ee 46 jirka ayaa wajahaya shaqo aad u adag maadaama uu bedelayo Pep Guardiola oo Manchester City kula guuleystay 6 horyaal oo Premier League ah, 4 ka mid ah ay ahaayeen kuwo xiriir ah, iyo Champions League ugu horeeyay ee taariikhda kooxda. Si kastaba ha ahaatee, Maresca wuxuu sheegay inuusan u imaan Manchester City si uu u koobiyeyo Guardiola balse uu doonayo inuu shaqadiisa u qabto sida uu isagu u arko inay sax tahay. Maresca ayaa markii saddexaad ku soo laabtay Manchester City. Markii hore wuxuu ahaa tababare ka tirsan akadeemiyadda kooxda, kadibna wuxuu noqday caawiyaha Pep Guardiola xilli ciyaareedkii 2020-2023 markaasoo City ku guuleystay saddexdii taariikhiga ahayd. Isagoo ka hadlayay culayska ka dhashay bedelidda Guardiola wuxuu yiri, tababare kasta wuxuu ka duwan yahay kan kale habka uu u shaqeeyo iyo sida uu u wajaho ciyaaraha. Waxaan eegayaa waxyaabaha aan u baahanahay inaan wax ka bedelno. Ma aaminsani in tababarnimadu tahay wax la iska koobiyeeyo. Anigu kubadda cagta si la mid ah uma arko tababarihii iga horeeyay, sidaas darteed ma rumaysni habka Kobe and Basti. Wuxuu sidoo kale sheegay in kooxihii hore u soo tababaray ay lahaayeen aqoonsi cad oo ciyaareed, taasina ay tahay sababta Manchester City u dooratay isaga. Maresca wuxuu shaaciyay inuu si joogto ah ula hadlay Pep Guardiola tan iyo markuu go'aansaday inuu ka tago kooxda. Wuxuu yiri, waxaan Pep la hadlay marar badan, isaga had iyo jeer wuxuu u baahnaa inuu ku raaxaysto waqtigiisa. Anigu waxaan u baahanahay inaan shaqadayda qabsado. 10 sano oo ciyaaro, 3 maalmoodna mar la ciyaarayo waa hawl aad u culus. Wuxuu u qalmaa nasasho. Pep Guardiola ayaa bishii May shirkiisii ugu dambeeyay ee jaraa'id isagoo tababare City ah la weydiiyay fariinta uu u dirayo qofka bedeli doona isaga. Wuxuu ku jawaabay, noqo qof aaminsan naftaada. Maresca wuxuu sheegay in taladaas ay qiimo weyn u leedahay isaga. Tababaraha cusub wuxuu sheegay inuu doonayo inuu sameeyo raadkiisa gaarka ah, isla markaana uu garanayo in Manchester City laga filayo koobab xilli kasta. Wuxuu yiri, koox sidan oo kale ah waa inay koobab ku guuleysataa, laakiin haddii aad kaliya ka fikirto natiijada ugu dambeysa, waxaad hilmaamaysaa dhammaan shaqada ka horeysa. Waxaan ahay tababare jecel shaqada maalinlaha ah, diyaarinta tababarada iyo la shaqeynta ciyaartoyda. Wuxuu sii raaciyay, yoolkeyga ugu weyn waa inaan koobab kula guuleysto kooxdan. Kooxihii aan horey u soo tababaray, Leicester City iyo Chelsea, waxaan kula guuleystay koobab, laakiin hadda kama fikirayo bisha May ama bisha June. Waxaan ka fikirayaa maanta iyo berri. Waxaan u socon doonaa maalinba maalinta ka dambeysa. Markii la weydiiyay cidda bedeli doonta Bernardo Silva oo ahaa kabtanka kooxda, Maresca wuxuu sheegay inuusan weli go'aan gaarin. Wuxuuna yiri, weli ma aanan gaarin go'aan rasmi ah. Waxaan haysanaa 3 musharax oo kala ah Ruben Dias, Rodri iyo Erling Haaland. Waxaan ka fiirsan doonaa ka hor inta aan go'aan gaarin. Maresca wuxuu sheegay inuusan u arkin shaqadan tan ugu adag adduunka, balse uu u arko fursad weyn. Wuxuu aaminsan yahay inuu ku guuleysan karo halka ay ku adkaatay tababarayaal kale oo bedelaya halyeeyo kooxahooda ah, sida David Moyes markuu bedelayay Sir Alex Ferguson iyo Unai Emery markuu bedelayay Arsene Wenger. Wuxuu sidoo kale ku tilmaamay Manchester City ay weli u baahan tahay xilli isbedel badan, isla markaana kooxda ay u baahan tahay shaqo dheeraad ah ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ah. Maresca sidoo kale wuxuu xaqiijiyay Rodri uu qalliin dhabarka ah marin doono toddobaadka soo socda. Khadka dhexe ee reer Spain oo dhaawacyo isdaba joog ah la kulmay sanadihii ugu dambeeyay, weli looma cayimin waqtiga uu garoomada ku soo laaban doono. Si kastaba ha ahaatee, Maresca wuxuu sheegay inuu doonayo in Rodri uu sii joogo Manchester City, inkastoo warar badan lala xiriirinayay Real Madrid. Wuxuu yiri, marka ciyaaryahan weyn laga hadlayo, had iyo jeer waxaa jiri doonta warar la xiriira mustaqbalkiisa. Taasi igama walwalgelinayso, waa wax caadi ah, gaar ahaan maadaama uu ku guuleystay koobka adduunka. Wuxuu sii raaciyay, tababare kasta wuxuu jeclaan lahaa inuu haysto Rodri sababtoo ah waa ciyaaryahan heer sare ah. Hadda wuxuu geli doonaa qalliin, kadibna wuxuu u baahnaan doonaa fasax nasasho iyo soo kabasho. Marka uu bogsado,
wuxuu dib ugu soo laaban doonaa Manchester City kadib dhamaadka Koobka Adduunka. Suuqa kala iibsiga xagaagan ayaa mar kale si buuxda u bilowday, waxaana muuqata in 19-jirkaan oo lagu magacaabo Yean Diamond uu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda lagu doonis badan yahay Yurub. Liverpool iyo Paris Saint-Germain ayaa horey loola xiriiriyay heesaha saxiixiisa, waxaana labada kooxoodba la sheegay inay gudbiyeen dalabyo. Si kastaba ha ahaatee, wadahadallada ayaa noqday kuwo aad u adag, iyadoo ay jiraan caqabado ka imaanaya RB Leipzig iyo wakaaladda ciyaaryahanka ee Roc Nation, taasoo dhalinaysa shaki ku saabsan in heshiiska la gaari karo. Warbixin cusub oo uu qoray Fabrizio Romano ayaa sheegaysa in Real Madrid ay hadda ku biirtay tartankan, balse dalabkoodu ahaa 90 milyan ay si rasmi ah u diiday RB Leipzig. Kooxda Jarmalka ayaa dalbanaysa wax ka badan si ay u iibiso xiddigooda. Inkastoo la rumaysan yahay in Liverpool ay ka baxday tartanka Diamond, taageerayaal badan ayaa aaminsan inay weli xiisayn karaan maadaama kooxdu aysan weli helin beddelka Mohamed Salah. Liverpool sidoo kale waxaa lala xiriirinayaa weeraryahanka PSG Bradley Barcola, hase yeeshee haddii PSG ay ku guuldareysato saxiixa Diamond, waxa ay u badan tahay inay ogolaan doonin Barcola inuu ka tago kooxda. Liverpool waxay u baahan tahay inay weeraryahan cusub la soo saxiixato ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga, haddii kale kooxda ayaa geli doonta xilli ciyaareedka cusub iyadoo haysata 4 weeraryahan oo kaliya oo loogu talagalay 3 boos oo weerarka ah. Tababaraha cusub ee Ariola ayaa laga yaabaa inuu markaas u jeesto bartilmaameedyo kale sida Yankuba oo u ciyaara Brighton Hove Albion, inkastoo ay jiraan su'aalo laga qabo joogitaankiisa kadib xilli ciyaareedkii 2025-26 uusan si fiican u ciyaarin kooxda. Weeraryahanka Bayern Munich Michael Olise ayaa muddo lala xiriirinayay Real Madrid, balse dalabka ay kooxda reer Spain u gudbisay Diamond ayaa shaki gelinaya suurtagalnimada heshiiskaas. Olise wuxuu ka ciyaari karaa lambarka 10aad, halka Diamond uu inta badan ka ciyaari karo garabka bidix. Haddii labadooda la keeno, waxaa laga yaabaa in Jude Bellingham dib loogu celiyo khadka dhexe, taasoo yareyn karta saameyntiisa weerarka. Inkastoo Olise laga yaabo in horeba u adkaa in la helo, raadinta Real Madrid ee Diamond waxay u muuqataa inay meesha ka saarayso qorshaha lagu doonayo xiddiga reer Faransa. Si kastaba ha ahaatee, labada ciyaaryahan waxay hal koox ku wada ciyaari karaan haddii Vinicius Junior uu ka tago Real Madrid, inkastoo hadda aysan u muuqan xiddiga reer Brazil oo kooxda ka tagayo mustaqbalka dhow.